wanaagsan dhageystayaal qodobada wararka duhurnimada raadiyaha wadaaga ee muqdishoedii haya waxaa ka mid ah faahfaahino laga helayo qarax ismiidaamin oo ka dhacay xero ku taalla muqdisho iyo faahfaahino laga helayo golaha deegaanka ee degmada Berbera oo doortay maayarka cusub iyo ku-xigeenka magaaladaasi madaxweyne Saciid Cabdullaahi Dani oo furay maanta kalfadhigii 48 ee baarlamaanka golaha wakiilada ee baarlamaanka maamulka Puntland xildhibaano ra'iisul wasaare Roobe u gudbinaya cabashada waalidiinta caruurtooda ay ku maqan yihiin dalka Eritrea dil ka dhacay deegaan ka tirsan gobolka Hiiraan iyo faahfaahino dheeraad oo laga helayo taliska ciidanka xoogga dalka oo shaaciyay qasaarihii ka dhashay qarax ka dhacay xero ku taalla magaalada caasimadda ee Muqdisho akhbaaraadka duhurnimo ee dhanka dibadda waxaa ka mid noqon doona ururka jaamacadda carabta oo dacwad u gudbinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay wadajirku waa wada noolaasho wada noolaashuhu waa inaan la kala maarmin aan la kala maarminna waa inay wax naga wada dhaxeeyaan wax kastaba way naga dhaxeeyaan aynu wada lahaano waana wadaag radio oo kule nala wadaag waqtigaaga nagula wadaag wanaag iyo waxsan sheeg wadaag FM radio wadaag waa wehelkaaga iyo waqtigaaga wadaag FM wadaag radio wadaag FM markale ismaqal wanaagsan duhur wanaagsan dhageystayaal waa 15 bisha 6 sanadka 2022 duhurnimo talaada inta waxay ahaayeen qodobadii warkeena ugu door corona iimankana u diyaar garooba dhageysiga warkeena oo dhameystiran faahfaahino dheeraad ayaa laga helayaa qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay xero ku taalla magaalada caasimadda ee Muqdisho wariyaheena Maxamed Cusmaan Nuur Golden ayaa warkan faahfaahinaya faahfaahinna dheeraad ayaa laga helayaa qarax ismiidaamin oo ka dhacay afaafka hore xerada tababarka ciidanka dawladda ee nacnac ay ku taalla degmada wadajir ee gobolka Banaadir una dhow xerada ciidamada Turkisom qof isku soo xiray jaakad waxyaabaha qarxa ayaa isku dhex qarxiyay dhalinyaro fara badan oo saf dheer ku jiray oo doonaysa inay iska diiwaan geliyaan xerada si ay uga mid noqdaan ciidanka kumaandoosta gorgor ee Turkigu tababaraan dad goobjoogayaal oo la hadlay warbaahinta ayaa u sheegay in qaraxaasi uu ka dhashay qasaare badan oo isugu jira dhimasho dhaawac oo soo gaaray dhalinyaro askar iyo saraakiil ciidan oo ku sugnaa afaafka hore xerada warar hordhac oo soo baxaya ayaa sheegaya in qarax ay ku geeriyoodeen in ka badan 15 dhalinyaro ah oo doonaysay inay ku biiraan ciidanka kumaandoosta gorgor iyo saraakiil isla markaana ay jiraan dad kale oo dhaawacyo ay soo gaareen dhaawacyada ayaa goobta looga daadgureeyay gaadiidka gurmadka degdega ah kuwaasi oo la gaarsiiyay xarumo caafimaad waxaana sidoo kale jira baabuur xoogan waxaana sidoo kale jira burbur xoogan oo soo gaaray afaafka hore xerada tababarka ciidanka ee nacnac laamaha amniga dawladda federaalka Soomaaliya ayaan weli wax wara ka soo saarin qaraxaasi qasaaraha geystay ee maanta ka dhacay degmada wadajir ee gobolka Banaadir gaar ahaan xerada tababarka ciidanka dawladda ee nacnac xeradan ayaa horey waxa uga dhacay qaraxan oo kale uu fuliyay ruux isku soo xiray jaakad waxyaabaha qarxa waxaana ku dhintay saraakiil iyo ciidamo badan oo ka tirsanaa kuwa dawladda federaalka ee Soomaaliya dhinaca kale taliska ciidanka xoogga dalka ayaa shaaciyay qasaarihii ka dhashay weerarkii ismiidaaminta ee maanta lala eegtay xero ku taalla magaalada caasimadda ee Muqdisho wariyaheena Qadar Xuseen Axmed ayaa warkan dhameystiraya dhimasho iyo dhaawac ayaa waxaa ka dhashay qarax ismiidaamin oo maanta ka dhacay afafka hore ee xerada tababarka Generaal Dhegabadan ee warshada Nacnac oo ku taalo degmada wadajir ee gobolka Banaadir qof isku soo xiray waxyaabaha qarxa ayaa beegsaday maanta dhalinyaro taagnaa afafka hore ee xeradaasi kuwaasi oo loo qorayay ciidanimo isla markaana doonayay inay ku tababartaan gudaha xerada lagu magacaabo Dhegabadan oo ku taalo gudaha degmada wadajir taliyaha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed Generaal Oduba Yusuf Raagi ayaa sheegaya in qarax ay ku dhinteen 10 ka mid ah dhalinyaro doonaysay inuu ku biiraan ciidamada xoogga dalka sidoo kalena ay ku dhaawacmeen 20 kale taliyaha oo la hadlay warbaahinta dawladda ayaa waxa uu hadalkiisa ku sii daray in dhalinyarada ay sugayeen baaritaanka ka hor intuusan dhexgelin qof isqarxiyay isla markaana haatan ay wadaan baaritaan dheeriya askasaba dhowr jeer ayaa sidan oo kale qaraxiis midaamin ah lagu weeraray xerada tababarka Generaal Dhegabadan ee degmada wadajir ee gobolka Banaadir waxaana ka dhashay qasaaro dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray askarta ku tababaranaysa xeradaasi madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland mudane Saciid Cabdullaahi Dani ayaa maanta furay kalfadhigii 48aad ee xildhibaanada golaha wakiilada maamulka Puntland wariyaheena Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warkan faahfaahinaya
madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa maanta khudbad ka jeediyay furitaanka kalfadhiga 48aad ee golaha wakiilada Puntland wuxuuna ka hadlay xaaladaha amni ee ka jira deegaanada Puntland qorshayaasha xukuumaddiisa horyaalla xilligan iyo waxyaabaha u qabsoomay iyo rajadiisa waxyaabaha uu doonayay xilligan wixii ka dambeeyay inuu qabto. Dani mas'uulka ugu sareeya Puntland oo ka hadlay dhinaca amniga ayaa sheegay in laamaha amniga Puntland ay soo afjareen shabakada ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab oo ka koobnaa 34 rag ah kuwaas uu sheegay in muddo 13 sano qaraxyo iyo dilal qorsheysan ay ka fulinayeen magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug. sidoo kale wuxuu hadalkiisa intaa ku daray madaxweyne Dani in xukuumadda Puntland ay laba jibaarayso dagaalka ay kula jirta dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo Daesh wuxuuna waalidiinta ka dalbaday in ay la socdaan dhaqdhaqaaqa carruurtooda. ugu dambeyn madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu baaqay shacabka ku nool deegaanada maamulkaasi in ciidamada ay kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo nabadgelyada si ay gacanta ugu dhigaan rag ka tirsan xarakada al-shabaab amnigana u wanaagsanaado sida uu hadalka u dhigay Saciid Cabdilaahi Dani. hadalka madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdilaahi Dani ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli mararka qaar xubno ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab iyo sidoo kale Daesh ee weeraro toos ah iyo qaraxyo ay ka fuliyaan deegaanada maamulka Puntland. golaha deegaanka degmada Berbera ayaa maanta doortay maayarka cusub ee degmadaasi iyo sidoo kale ku-xigeenka magaalada. wariyahana Qadar Xuseen Axmed ayaa warkan faahfaahinaya. magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee maamulka Soomaaliland ayaa waxaa maanta ka dhacday doorashada duqa magaaladaasi waxaana doorashada ku tartamaya 3 musharax oo ka kala socday xisbiyada Kulmiye oo ciidii wadani oo ka dhisan gudaha maamulka Soomaaliland. xilka duqa magaalada Berbera ee gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa waxaa maanta ku guuleystay mudane Cabshakuur Maxamuud Ciidin oo xilkaasi horay u hayay isagoona ka tirsan xisbiga Kulmiye oo hogaamiye madaxweyne Muuse Cabdi. guddiga doorashada ee maamulka Soomaaliland oo tiriyay codadkii ay dhiibteen xubnaha cusub ee golaha deegaanka Berbera ayaa ku dhawaaqay natiijada doorashadii maanta dhacday iyagoona sheegaya inuu guuleystay Cabshakuur Maxamuud. ammaanka guud ee magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ee Soomaaliland ayaa maanta loo adkeeyay waxaana xusid mudan in wadooyinka magaaladaasi lagu daadiyay ciidamo fara badan oo ka tirsan booliska maamulka Soomaaliland oo sugayay ammaanka halka ay doorashada ka dhaceysay waliba wadooyinka kale ee magaalada Berbera. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya ayaa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya u gudbiyay cabashada waalidiinta carruurtooda ay kaga maqan yihiin dalka Eritrea. wariyahana Maxamed Cusmaan Nuur ayaa warkan faahfaahinaya. xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ee Soomaaliya ayaa waxay shaaciyeen in ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta mudane Maxamed Xuseen Rooble u gudbin doonaan cabashada waalidiinta carruurtooda ay dowladda Soomaaliya tababarka ciidan ugu dirtay dalka Eritrea. xildhibaan Mahad Maxamed Salaad oo kamid ah xildhibaanadaasi ayaa sheegay in cabashada waalidiinta ay dhowr jeer u gudbiyeen golaha wasiirada iyo taliyayaasha ciidamada haddana ay qorsheynayaan inay u gudbiyaan ra'iisul wasaaraha Soomaaliya. wuxuu hadalkiisa intaasi ku daray in haatan ay qorsheynayaan inay u gudbiyaan ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble cabashada waalidiinta iyo dhaliisha laga muujiyay guddiga ra'iisul wasaaruhu magacaabay cabashada waalidiintaasi. bilii la soo dhaafay ayaa waxaa taagnaa cabasho ay muujinayeen waalidiinta carruurtooda tababarka ciidan loogu qaaday dalka Eritrea iyagoo sheegay inay maqleen in laga qaybgeliyay dagaalkii ka dhacay waqooyiga Itoobiya halkaasoo ciidamada federaalka Itoobiya ay weerar ku qaadeen ismaamulka Tigreega. dagaalkaas ayaa waxaa la sheegay inay ka qayb galeen ciidamo ka socday dalka Eritrea kuwaas oo sida la sheegay dagaalka ka qaybgeliyay ciidamo Soomaaliya oo tababar u joogay dalka Eritrea. dhowr jeer hore magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka iyo qaar kamid ah degmooyinka gobolada dalka waxaa ka dhacay banaanbaxyo ay dhigayeen qaar kamid ah waalidiinta carruurtooda ay ku maqayeen dalka Eritrea iyagoo dowladda Soomaaliya ka codsanayay inay cadeyso carruurtooda halka ay joogaan iyo inay bad qabaan. iminkan Shabeellaha Hoose wararka laga helayo gobolka Shabeellaha Hoose waxay sheegayaan in kolonyo ay la socdeen cutubyo ka tirsan ciidanka AMISOM in lagu weeraray deegaano ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose. xubno ka tirsan al-shabaab ayaa la sheegay in weerar ay ku qaadeen kolonyo gaadiid ay wateen ciidanka Uganda oo ka tirsan kuwa AMISOM xilli ay marayeen deegaan ka tirsan gobolka Shabeellaha Hoose.
kolonyada ciidanka amisom ayaa waxa ay la sheegay in lagu weeraray wadada u dhaxaysa deegaan la yiraahdo lambar 60 iyo sidoo kale inta u dhaxaysa magaalada Marka oo xarunta gobolka Shabeellaha Hoose. qaar ka mid dadka deegaanka waxay soo warinayaan in jug culus iyo sidoo kale rasaas xoogan ay maqlayeen xilli halkaas ay socdaallo ay ku mariyeen cutubyo ka tirsan ciidanka amisom. lamagu qasaaraha ka dhashay weerarka ka dhacay gobolka Shabeellaha Hoose waxaa inta badan gobolka lagu weeraraa kolonyada ciidanka amisom ee halkaasi ku socdaalaya ayaa xirtay darawallo cabasho ka ah wadooyinka ku yaala magaalada caasimadda ee Muqdisho ayaa xirtay qaar ka mid ah wadooyinka Muqdisho. wariyeenna Cabdiwahaab Xuseen Cali ayaa warka faafahinaya. boqolaal dhalinyaro ah oo ka mid ah darawallada mootobajaajka ayaa maanta banaanbax cabasho ah ka dhigay agagaarka daljirka Dahsoon degmada Boondheer gobolka Banaadir. darawallada mootobajaajka oo xirtay wadada Shabeelle ee aada dhinaca suuqa Xamarweyne ayaa sheegay in ay ka cabanayaan burburka wadooyinka ku yaala magaalada Muqdisho iyo wadooyinka ay xireen biyaha roobka. qaar ka mid ah dhalinyarada ku shaqeysata mootobajaajka oo la hadlay warbaahinta ayaa waxay u sheegeen in ay wax la aqbali kara aysan ahayn iyagoo laga qaado canshuur in ay waayaan meel ay maraan burburka wadooyinka iyo wadooyinka qaarkood oo biyo xiray. maamulka gobolka Banaadir ayay dhalinyarada ugu baaqeen in si degdeg ah ay wax uga qabtaan cabashadooda isla markaana ay furaan wadooyinka ay xireen biyaha roobka oo ka da'ay magaalada iyo kuwo kale oo iskood u xiran. sidoo kale darawallada mootobajaajka oo xirtay wadada Shabeelle ayaa tilmaamay in halkaasi u xirnaan doonto ilaa iyo jawaab laga siinayo cabashada ay soo gudbiyeen iyagoo oo sheegay in ay tageen xarunta degmada iyo meelo kale balse ay waayeen cid ka jawaab siisa cabashadooda. sidoo kale dadyoga ku dhaqan degmada Yaaqshiid waxay aad uga cabanayaan wadada aada Ramadaan ilaa iyo suuqa xoolaha oo hadda ka xiran isgoyska Fagax. isgoyskaas oo in muddo ah xiran waxaana xiray roobab halkaa ka da'ay biyo fadhiistay iyo dhiiqadoo xadkeeda dhaaftay. waxaana dadka ku dhaqan degmada Yaaqshiid ee baaq u direen gudoomiyaha degmada Yaaqshiid iyo kan gobolka Banaadir in ay wax ka qabtaan isgoyska Fagax wadada aada dhanka Ramadaan ilaa iyo suuqa xoolaha oo muddo sanad iyo ka badanba iska xiran. warkaasi halkaad kala socotaan waa shabakada warbaahinta wadaagga ee magaalada caasimadda ee Muqdisho. iminkan akhbaraadkii dibadda. ururka jaamacadda carabta ayaa dacwad u gudbinaya golaha ammaanka ee qaramada midoobay. kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Xasaam Zaki ayaa waxa uu hadalkan ku sheegay hadal uu siiyay ama wareysi uu siiyay telefishin waxaana xusay in golaha ammaanka ee qaramada midoobay ay qaadi doonaan mas'uuliyadda muranka ka taagan dhismaha biyo xireenka Itoobiya. waxaa inta uu ku diray in kulan degdeg ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka maanta ay ku leeyihiin magaalada waa caasimadda dalka Qatar ee Doha kaasi oo laga soo saari doono bayaan ku aadan in golaha ammaanka qaramada midoobay dhabarka ay u ridin doonaan mas'uuliyadda ka dhalan karta arintaasi. dhinaca kale kaaliyaha xogayaha guud ee ururka jaamacadda carabta Xasaam Zaki waxa uu ugu baaqay golaha in ay soo farageliyaan muranka biyo xireenka Itoobiya si xal loogu helo deganaanshaha mandiqada. dowladda Masar iyo Suudaan ayaa codsaday in kulan degdeg ah wasiirada arrimaha dibadda ee dalalka Carbeed maanta ay ku leeyihiin caasimadda dalka Qatar ee Doha. kulankaas waxaa looga tashan doonaa isla markaan la filaya in laga soo saaro bayaan ay ku mideysan yihiin wadamada carabta kaas oo lagu taageerayo mowqifka Masar iyo Suudaan ee khilaafka kala dhaxeeya Itoobiya biyo xireenka la yiraahdo Jarad. warkii duurnimo aad kala socoteen shabakada warbaahinta wadaag dhageystayaal oo anageynta cid warkan uu sheego waxay keeni karaan page-ka internetka aan ku leenahay oo radiowadaag.com iyo sidoo kale baraheena bulshada aad ku mahadsantihiin la socodka le jaanqaadka warkeena duurnimo.